موقتهي إن نظام كديوان قلنت مرحلة مهمة لو ديوان قليه هاب عصرية أو أن لهين وراقية دوسية لسلا دبوريقو وكالة الديوان قلنت مرحلة مهمة كدو ديجان كالصومالي أياب بلوضي نظام كديوان قلنت أو هاب ديجيتاله أو ديوان قلنسو كاس ومدة سنة تجابة كسوجري هاب كعصر قاي ديوان قلنت مرحلة مهمة أيا نظام ديوان قلكيسو وحاو يهمد اسكو حرر من حرمت الديوان قلنت قبلية ilaa iyo sarfarada wakaalada iyo immigration-ka oo xogta qofka lagu kaydinayo taasoo muwaadinka u fududeynaysa helitaanka adeegyada kala duwan ee uu baahan yahay haddaba maxay tahay faa'iidada ugu jirta muwaadinka inuu nidaamkan casriga isku diiwaan geliyo habkan casriga ah wuxuu u shaqeynayaa qabaleegii laga soo bilaabo hadduu dhuxun ku yaalay ka soo qaad waxaa la siinayaa tablet ay ku diiwaan geliyaan marxalad walba oo ka dhacda qabaleegaas kadib marka xagga tabkaas ayagoo isticmaalaya ay qabaleegii diiwaan geliyaan ayaa data center baa la sameeyay regionka ku yaala kililka ku yaala deegaanka caasimadiisa magaalada Jigjiga kuna yaala federaalka caasimada Addis Ababa diiwaangelintaas ayaa sidaas loola soconaya iyadoo loo sameeyo oo loo dhameystirayo infrastructure-kii ay u baahnaayeen dhanka network-ga ah iyadoo telega lala kaashanayo iyadoo lala kaashanayo hay'ado kala duwan oo deeq bixiyayaal ah si loo fudaydiyo loona kaydin karo lumitaankii badnaa iyo gubitaankii iyo xumaanshihii badnaa ee daatada ku dhici jirayna laga badbaadinayo faa'iidooyinka ka soo kordhaya in digitalization kan cusub lagu kordhiyo waxay noqonayaan daatadii lumi jirtay hadda ma lumayso qofkii haddii certificate-kii oo lumiyo dib sameyntiisii search yar bay ku xidhnaanaysaa oo sidii hore ma ahaanayso buugaag waaweyn oo badan oo meel walba 3 koobi la geyn jiray oo kharash badan ay dawladda ku bixin jirtayna kharashkii aad buu u dhimaya intaasaan ku soo koobaya faa'iidooyinka hadda uu soo kordhinayo wakaalada diiwaangelinta marxaladaha muhiimka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida